السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا قالك سود ودا وقيبت التضواد شركة نفسي نمر جعيل ماركري أي سمير كرو دواقدي ركابك غاريغا سارناي oo aan sida ugu sii durugsanayn ayaa ku soo orday Samira way fadhida oo qalinaysa eedina dhashida ay afka ku goranaysa rakaabkii oo dumar u badnaana qof ku dhaco intuu eeda dhaafo Samira garabsi ayaa la laayahay kirshbeega gaariga ayaa loo yeedhay isaga ayaa eedi eegay meeshana Samira ka soo qaaday goobtii ay ku dhaawacantay dhig ayaa buux dhaafiyay Samira muruqa lugta in yar ayuu iska haystaa intiisa badanna waaba la laaday inta waxa dheer cirbad dhiga qulqula lagu joojiyo tuuladan iyo mid ka sokaysa boormatuna lagama helo safarka intiisa badan ayaa harsan waa habeenimo baabuurka si xad dhaaf ayaa loo soo buuxiyay waxaan moodaa in dadku dusha iska saaran yahay guuri habeenimo oo hinti Samira iyo naxariisi ama jirdabci rakaabka waxa la soo nabad gaaray magaalada Boorama Samira waxa la weydiiyay inay garanayso xaafadda ay ku dagaysay maadaama ay dhaawacantay oo aan isdabari karin si loo geeyo guriga markii gaariga laga dagayay ayay shandadida gacanta barbaadhay telefoonkeeda gacanta ayay ka weyday waxa markiiba maskaxdeeda ku soo dhacay in ay meesha iyadu ku cuntay telefoonkeeda kaga timid cambaar markii hadalka la isku celceliyay ee dhinaca Samira xal iyo jiha loo kaxeeyo laga waayay waxa xal keenay gabdho rakaabka kamid ah waxaana soo jeeday inta Samira cid looga helayo in isbitaalka la geeyo isbitaalkii ayaa la dhigay Samira lacag waxay wadataa $50 ah lacagtii ay wadatay waxay noqotay dhaydii ugu horeysay oo kaliya Samira waxay codsatay in gaariga siday uu telefoonkeeda gacanta ugu baadi goobo halkii iyadu ku cuntay bal inuu kaga dhacay wali Samira waxay rajo weyn ka qabtaa in hadii ay hesho lambarkii keenan ay caqabadaan haysta kala fududaan doonaan gaariga Samira Boorama keenay markuu ku noqdo tuulada Samira iyadu ku cuntay waliba isla goobtii nasiib daro inankii meesha wax telefoon ah kuma arag gaarigu wuxuu habeen ku dhaxay Boorama laba habeen oo kalena wuxuu ku dhaxay Jabuuti Samira jawaabta waxa uu keenay 3 habeen kadib isbitaalkii Samira ku jirto wuxuu rabaa lacagtii jiifka ee habeenkii dhaymadina waa laga joojiyay gaariga ayaa Boorama soo gaaray waxaanu Samira u sheegay in meesha wax telefoon ah aan ku soo arkin Samira 3 waqti ayaa hal mar cunto loo keenan dhibkan iyo dhaawacana waxa kala weyn sida isku seegaan keenan isbuuc markay Samira isbitaalka taalay ee ay rajo ka qabto in keenan isbitaalka ugu imaan doono waxay dareentay in qarashka jiifka isbitaalku ku sii badanayo waxay go'aan ku gaadhay in la markii hooyadeed garaacdo una sheegto wixii ay dhib la kulantay isla markaana ka codsato in loo soo diro qarashka isbitaalka iyo qarash ay gaariga dib ugu soo raacdo gaariga soo qaaday ayay dib ugu soo noqotay Samira iyadoo niyad jabsan oo cagajiid ah gaarigii markuu magaalada Lowyacad u jiro 20 kiiloomitir ayuu tayr u baxay rakaabkii gaariga saarnaa waxa ku dhaawacmay Samira iyo islaanta ahayd oo kaliya Samira bir ayaa ka gashay garka hoostiisa waxaana dilaacay ilaa 4 qodob oo la tali karo iyo jilibka midig oo joog ka soo gaadhay oo isna barar keenay Samira oo caafimaad qabto rajo guur oo wanaagsan leh ayaa ka baxday magaalada ay ku dhalatay ee Jabuuti waxayna ku soo noqotay iyadoo 3 nabar qabta qoosna ka taagan riyada guurka ee sanadka ugu dambeeyay hurdada u diiday Samira Somaliland iyo safarba way ka xanaaqi jirtay inta waxa ka sii daran in keenan uu ka warqabay muddada ay isbitaalka ku jirtay guriga uu magaalada ka degan yahayna wuxuu ku yaalay isbitaalka dhabarkiisa isla subaxda Samira la keen isbitaalka uu ogaaday in qofka dhex ku soo dhaawacmay ay Samira tahay Axmed ayaa yiri sheekada ila sii dheeraatay saaxiib ee aan ku sii dhaweeyay inakan meesha lagu sheekaysanayay waxay ahayd xafiiska Axmed kulanka waxa ku xigay kulan ay wada qaateen Samira iyo Maxamed Amiin oo aad u cariisan oo aad moodo inuu degdegayo sheekaduna isna ay ku bilaabatay Samira ayaa tiri habeen wanaagsan gacliye Maxamed Amiin ayaa yiri fadhiiso aniga caawa habeen wanaagsan agteeda ma yaale Samira ayaa tiri maxaa dhacay ee aad maqashay Maxamed Amiin ayaa yiri waxa dhacay oo aan maqlay inaad qiyaantay oo aad iga qarisay wax badan oo noloshada ku saabsan wax kale oo badanna been baad iga sheegtay Samira ayaa Maxamed Amiin ku tiri mararka qaar beenta waxa kugu kalifay waqtiga iyo duruufaha nololeed hore waxa uu sheekaysanay rag badan mid kasta oo ogaada taariikh nololeedkayga hore waa iga taga laakiin waxaan raadinayaa in qadarka aaminsan oo aan igu calaan wixii Alle ii qoray ee igu dhacay